xogayaha warfaafinta ee xisbiga mucaaradka ee Ucud Yuusuf Kayse Cabdilaahi ayaa waxa uu ka jawaabay hadal uu madaxweynaha Soomaaliland uu dhawaan sheegay oo ahaa in xisbiyada mucaaradku ay habboonaan lahayd in goor hore ay soo gudbiyaan soo jeedimahooda la xidhiidha qabsoomidda doorashada. Yuusuf Kayse ayaa sheegay in muddo hore ay u gudbiyeen gudida doorashada soo jeedimaha xisbiga inaan ummadda u cadeeyo hadallo hoos iyo kor bay u yiraahdeen xisbiga kulmiye kuwaas oo leeyahay xisbiga Ucud soo jeedintan imika wado ama soo jeedintii uu ka qabay doorashada muxuu komishanka ugu gudbin waayay. waxaan shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland dibadda iyo gudaha ugu cadeynayaa in warqadda komishanka ay naga soo gaadhay 5tii bishii 5aad 2018 markii ay komishanka maalinta naga soo gaadhay xisbigu shirbu isugu yimid isla maalinnimadkiiba markii shirkaanu ka baxaynay waxa tala soo jeedintii Ucud aanu gudbinay komishanka warqadii aanu gudbinayna wata warqadaasoo ka koobnay 7 qodob baanu gudbinay maalinnimadka aanu tagnay waxaanu ka wada doodnay oo muddo 5 saacadood komishanka aanu ka wada doodaynay qodobada Ucud u gudbisay 7 qodob ee halka ku qoran ayaanu gudbinay 7 qodobba komishanku hal qodob oo dastuurku naga reebay mooyaan 6 qodobba sideedii baa loogu daray xeerka waxaanu hadaba ummadda u cadeynaynaa xilligan anagu gudbinay dheedkana waxa weeye waa 6tii bishii 5aad 2018 hadaba waxaan ummadda iyo shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland u cadeynaynaa xisbiga Ucud inuu diyaar u ahaa ilaa imikana diyaar u yahay sugayana in doorasho dalka ka dhacdo wax alla wixii sababa iyo wax alla wixii lagu marmarsoon karayo ee Ucud xaqiisana uu naga dhameystiran yahay anaga sabab alla sababna loogu soo dhuunto iyo sabab alla sabab cudurdaar loogu sameeyo ma taala halka waxaan ummadda u sheegaya waxaan leeyahay xisbiga kulmiye sidii habeenkii dhow gudoomiyaha golaha guurtidu yiri madaxweynuhu yaanu afka ka meermeerina ha sheego inuu isagu sabab yahay doorashada inaanu diyaar u ahayn inuu dalkan doorasho ka qabto madaxweynuhu khudbadiisii maalintii u dambeysay uu hadlayay wuxuu yiri ilaa June bay xisbiyadu inay soo jeedintooda gudbiyaan annagu waanu ku horreeyay May baan gudbin madaxweynuhu wuxuu sheegay inaanu May gudbinay soo jeedinteedii wax alla wax naga qabiya oo maanta dhulka naga yaalaan ay jir baashaas haday dib u dhacdana cid mas'uuliyadeeda yeelanayso madaxweynaha cid alla cid kale oo leh ma jiro waa maxay waxyaabaha ay u gudbiyeen gudida doorashooyinka Soomaaliland soo jeedintaas waxa weeye waa 7 qodob oo way aragnimadii doorashadii hore aynu ka dhaxalay iyo xildhibaanadii hore aynu dooranay way aragnimadii aynu ka dhaxalay 7 qodob oo xisbigu uu siri uu dan u arkay ayuu gudbiyay si xeerka loogu daro oo ay kamid ahayd muranka komishanku oo Ucud soo jeedinteeda aanu sheegnay sida Ucud u rabto in komishanka laga dhigo isaga xeerkeedaba oo ay kamid tahay kriteeriyadii ama shuruudihii lagu xiliyay xildhibaanada soo socda si ay dalkan iyo dadkan wax ugu qabtaan iyo waxyaabaha kale aanu aragnay xeerka doorashooyinkeena qabiye ka tahay si loogu daro xasan galayd wararka on cable Hargeysa.